salaam nabadii naxariis korkiina ahaato maanta waxaan jecelnahay xaggan aan idinku bayaanino waxa loo yaqaano Amazon seller bal aan gudaha u galno cashirkeena YouTube maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa cashirkan aad ka arkaysaan aan hortiina ka muuqda waa Amazon FBA waa Afsomaali ku baxaya wuxuuna taaban doonaa sida alaabaha loo galsho suuqa Amazon waa koorsiga koowaad hadduu videogan uu noqon kari waayo hadduu noqdo mid ka badan 10 daqiiqo waxaan samayn doonaa waxaan u kala dhigi doonaa laba chapter insha Allah course 1 iyo course 2 fadlan la soco cashirka kale insha Allah waagaag aan gudaha inaan ka hadalno qodobada aan rabnay inaan meeshan kusoo bayaanin maanta qodobka ugu horeeya waxaan rabnaa cashiradan inaan ka hadalno coursiga koowaad cashirkeena maanta wuxuu ku salaysan yahay sida Amazon loogu diro alaabaha iibka ah alaabaha ku yaala aad rabto inaad Amazon u dirto ama alaabaha aad ii sheegaan dropshipping ku samaynayso aad soo iibiso aad si iibin doonto Amazon online aad ku iibin doonto waxaan rabnaa inaan marka hore ka bilaawno Amazon Seller Centerka alaabihiisa aan u gelino softwaredan isticmaali doono waxaa ka mid ah Jungle Scout softwareda kale aan isticmaalnay waxaa ka mid ah ayagana softwareka la yiraahdo Kiba software labadoodaba inta badan waxay ku shaqeeyaan Amazon companyga aan daba taaganahay aan tracking ku sameeyno waxa la yiraahdo Homax GPS holderadu iibiya waxaan kaloo wax yar taaban doonaa sida keyword listing loo sameeyo oo yacni productigaaga magacoodu u noqon karo kuwa fiican annaga productiga ii sheeg listigeena waxaa la yiraahdaa universal hands free car phone holder mounted for dashboard windshield and compatible with all smartphones iyo waxaan rabnaa inaan ka hadalno dadka intooda badan lambarka lixaad GS1 dadka waxay u yaqaanaa meesha baarkoodyada laga soo iibsado iyo annaga meesha aan ka soo iibsano oo ka lacag yar ayagana aan comparison ku samayn doono hadduu waqtiga noo saamaxo insha Allah waagaag aan hore u galno waxaan isleeyahay intiina badan inaa wada taqaanaan sida Amazon Seller Centerka loo yimaado haddii aadan aqoonin aadan accounti ka samaysan aad jeceshahay maantada inaad ka samaysato fadlan video ayaan hore uga soo duubnay waxaad google garayn doontaa videogan la yiraahdo Amazon FBI sida wax loogu sameeyo Amazon labadan video aad iyo aad muhiim u yihiin waana beginnerka ama dadka inay bilaabaan rabaan waa daawan kartaa si aad ula socoto sida accountiga loo samaysto ama waxaa jira walaalo fara badan oo Soomaaliyeed ayagana videodan inta badan ka wada hadlay waagaag aan dib ugu noqono Amazon Seller Centerka aniga waa soo saangareeyay waagaag aan dib ugu noqdo videogii magacayaan daboolay raali noqdo markaa xaggan joogto waxaa samaynaysaa markaa soo gasho I think 2020 22 iyo 21 sida softwareka u shaqeynaysa Amazon way ka duwan tahay softwarekan cusub ay soo saartay November 2022 iyo haddan sida Amazon marka alaab loo diraayo loogu diro xaggan hore waxaa ka arkaysaa xaggan magacaaga ku qornaan doona annaga magaceena waa daboolnay maadaama accounting uu yahay account test oo tijaabo aan ugu talagalnay inta badan shayga markaan tijaabinayna u dirna Amazon markaan u dirnana ii sheeg waxay noqotaa haddii tijaabadaas lagu guulaysado accountigeena kale ayaan isticmaalnaa oo regularka ah xaggan waxaa ku qoran marketplace-ka meesha aad ku iibinaysid waddanka aad ku iibinaysa aad ka tirsantaa aniga waxaan ka tirsanahay North America sa xaggan ku aragtaan orderada kuu furan buyerka iyo total balance-ga haddaa global promotion sales u baahantay xaggan aad riixaysa haddii aad adduunka hore inaad ku iibiso meelaha Amazon ay ka shaqayso waa hagaag 4 dhibic xaggan ku qoran ayaad taaban doontaa marka aad taabato waxaa kuu soo baxay catalog inventory iyo howlo kale oo la xiriira kuwaas mar dambe ayaan dib u sharxi doonaa marka aan gudaha u galno haddan waxaan target ka saaraynaa catalog iyo sida alaabta loogu diro xaggan waxaa ku qoran add product alaab haddii aad Amazon registration ama aad diiwaangelin ku samaynayso diritaan maaha waa diiwaangelin keliya alaabtan baan rabaa inaan idiin soo diro diiwaankooda waa kana macluumaadkooda Amazon ayaa approve ku siin doonta markaas iyada ah waa hagaag aan ku dhufano marka xaggan timaado waxaad arkaysaa find product in Amazon catalog
xagga hoosena waxaa ku arkaysaa I'm adding product not sold in Amazon. Okay, so xaggan haddaa ku qodho iyo xaggan haddaa ku samayso waa isla meeshii, you know, and they give you xagga markaa ku qorto magacaas, maadaama annaga magaca aan ka soo qaadanay aanan magaca aan soo xulanay, wuxuu noqon karaa dad kambaniyaal kale oo alaabahaas iibiya sida kambanigii aan idiin sheega Homaxka la yidhaahdo ayaa soo booday dhaway. Marka iska ignore garee, xagganaad ku dhufanaysaa I'm adding product not sold in Amazon, because waxaad rabtaa productigaaga inay aad kambani kale hoos tegin. haddaa hoos tagtana kambaniga kale anoo kale aad ii imaanaysa madaxan kugu dhufanaya. So waxaad always dooran doontaa I'm adding a product not sold in Amazon. waa hagaag horaan u socono. Alright, productigan waa tijaabin, waa ku darnay magacyadooda intay kasoo boodaan, laakiin waxaan rabnaa manually xaggan iyadoo ku qornayn ayay noqonaysaa markaad adiga aad gelin doonto. alaabta aad iibinaysaad xaggan ka dooranaysaa nooca ay tahay. anaga maadaama aan iibinayno cellphone accessories, alaab ku saabsan, maadaama aan waxaan iibin doono xaggana jungleskaadan dib ugu noqono. waxaan rabaa inaan ii sheeg idin tusiyo sida aan alaabahan aan raadinaynay aan ku soo helnay. aan taariikh yar idinka tusiyo alaabahan raadinaynay. So xaggan waxaan ku aragnaa kambaniyo, aan dib u noqdo, sorry, product supplier. So kambaniyada aan taraagaraynay waa badan yihiin, waxyaabo fara badan aan taraagaraynaa xaggan, kambaniyo fara badan. ninkan hadda ugu dambeeya we tracking average selkiis wuxuu iibiyey hal xabo keliya uu iibiyey, rankigiis waa 380. waa taraagaraynanaa this guy, waa bahalo cusub, way cusub tahay. So we want to know exactly, annagana waa naqaanaa meesha laga soo iibiyo. waxaan rabnaa inaan ogaano sababta uu ninkan ii sheeg. hadduu selkiisa high noqdo annagana waa dalbanayna, waa keenayna, we sell it because 14.59 price aad u fiican waay Amazon. markaa ku iibinaysa Amazon laga yaaba $4 inay kaa qaado $10. baaladanna waa less than $3.50 ee Maraykanku ku imaanayaan. So marka waxaan rabnaa inaan ii sheeg dashboardadan aan daba soconay, kambaniyadan ayaa iibiya. afarta ugu tafsan waa kuwan. Okay, so marka waxaan rabnaa inaan ayagana midkiiba wuxuu iibiyaa 26, midkaan ku daba jirna wuxuu iibiyaa 28.99, midna wuxuu iibiyaa 18.99, midna wuxuu iibiyaa 27.95. kan ugu raqiisan oo weli tafka ah, hard to compete this guy, wuxuu iibiyaa 13.99. sida loo ninkan baal yar buu wataa xataa ventiga galaya. So magaca waxaan ka soo qaadanay kambaniyadan. Okay, magacaan rabna inaan meesha gelino. So iyagana waxaan ku ogaanaynaa in ay ii sheeg categoriga ay ku jiraan. saan u ogaano categoriyadan meesha ay ka tirsan, waxaan tagaynaa productigii kambaniga aan ku daba jirnay Homes. waa aragtaan Amazon buu ku leeyahay, Amazon baan ku dhufanaynaa. waa kambanigan asna waa Kiba, sorry, waa ka kala boodaynaa, magacyada garan kartaan. waxaan ogaanaynaa meesha uu ka joogo, let's see, meesha uu kaga jiro uu productigan geliyay rabnaa inaan ogaano. Okay, list of the productgiisa wuxuu ku jiraa type of automobile buu ku jiraa, car track, automobile, dash buu ku jiraa, vent, waxyaaba magacyo badan oo meelahan ka taabanaya. laakiin the main important, let me go back, the main important waxaan rabnaa marka aad Kiba isticmaalaysid, haddaad isticmaalin dariiq kale idin tusin doonaa. waxaad ku dhufanaysaa meeshan data la yidhaahdo. waxaad ogaanaysaa ninkan meesha uu yaalo. categoriga uu isticmaalay waa cellphone accessories, waa kii aan xaggan ku arkaynay. cellphone accessories waa ku dhufanaynaa. waxaan tegaynaa haddana meeshii cellphone accessories isticmaalay. Okay, xaguu ka tegay cellphone accessories? wuxuu ka tegay automatically cellphone accessories ku dhuftay. haddana markuu accessories ku dhuftay waa category 3, waa sida uu geedka laamaha u bixiyo, siduu ninkan laamaha u raaca lagu sheegaya. cellphone accessories ku dhuftay, wuxuu kaga dhuftay accessories, wuxuu kaga sii dhuftay automobile accessories, wuxuu kaga sii doortay carlax. Okay, so that was the way annaga aan magacan kula nimi ku qoran xaggan cellphone accessories, automobile, automobile, carlax. All right, so accessories aan ku dhufanaynaa, automobile,
waxaan ku dhufaynaa crowdless kan waa ka trainer sorry crowdless all right so you choose the crowdless and then this is the way it's going to xaggan ku keenaya xagga markaad timaadid then you hit a select wuu ku kaxaynaya wuxuu ku geyn doonaa gudaha okay so now waxaa laga yaabaa meeshan aad arkaysid inay aadan option badan ama doorasho badan aad haysan waxaad tegaysaa xaggan aad eegaysaa waxaad leedahay waxaan u baahanahay all attributes qodobadan oo la kordhiyey oo yacni la furay baan u baahanahay oo furan markaad ku dhufato qodobadii kuu soo kordhin doonaa xaggan kor ku geenaya marka hore maxaa xaggan noogu qonaa relevant waxa la xiriira keliya 1 2 3 4 5 xaggan markaan ku dhufto waxay noqon doontaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wuxuuna siin doonaa more warbixin dheeraada okay waa hagaag aan u noqono tababarka Amazon seller waan soo dubmarnay jungle-skaadna waa idin tusiyey sida aan magaca ula soo baxnay kiiba software-na waa idin tusiyey haddii casharadooda aad u baahnaan doontid dib ka soo codsada fadlan noo sheega waa idiin sheegi doonaa kambaniga aan taraagaraynayna waa idiin sheegnay waa homax waa kambanigan aan homaxka la yiraahdo oo Amazon waa ku dhufanay asna waa kambanigan homax la yiraahdo aan keyword listiga sidaan keyword listiga ku yeelanay waa inaad Amazon waa inaad jungle-ska taqaanaa keyword meesha ay ku qoran tahay is very helpful way keyword listing sidaan keyword kula soo baxnay waa xaggan universal hands free card phone holder mountain for dash and windshield so ayagana haddaan gelin doonaa keywordka xaggan marka aan magaca soo gelino waa hagaag let's get a keyword keena waa universal card holder phone with a smart okay copy and dahno oh sorry mid baan ka tegay all right xaggan baan la imaanaynaa waxaan leenahay past xaggana saaraynaa universal hands free car phone holder mountain for dash and windshield xaggan iska compatible with baa ka maqanaya with all smartphones okay so xaggan hore wuxuu kaas waa title-ka iyo keyword sida lagu helay waa title-ka iyo keywords aan ku helnay kambanigaan soo taraagaraynay marka waxaa xaggan ku qoran sida aan ku heli lahayn product ID which loo yaqaano ana UBC iyo EIN inta kuwa kale meelaha kale laga isticmaalo waa warshadaha ISN-kaasi laakiin UBC iyo EIN European EIN ka isticmaalaan annaga Mareykan waxaan isticmaalnaa UBC I think in North America inta badan laga isticmaalaa sidee ku helaysaa UPN-kan dadka intooda badan haddaa YouTube-ka eegto waxaa lagu leeyahay waa inaad tagtaa kambaniga la dhaho GC1 for barcode inaad ka soo iibsato GC1 waa kambanigan GC1 US GTN wuxuu ku leeyahay barcode is usually inta badan GCN US uniquely identify single retail product online retail software baa lagu yani code u goonin buu leeyahay mid walba license GSA US GTN kambanigan marka wuxuu isku taxluujiyey GSN qurxoon oo aanan haddii maanta la iibsado kan barcode-kan maanta la iibsado ama maalin kale la isticmaali karin laakiin waxaa jira kambaniyo kale oo bannaanka jooga oo ka raqiisan kambanigan maadaama uu kambanigan uu aad qaali u yahay 1GS US GTN aad iibsato fiigiisa waa word waa 10 xaba haddaa iibsato waa $250 sanadkiina waxaa lagaa qaadi doonaa $50 ma fahantahay sanadkiina waxaa bixinaysaa $50 10 xabo haddii aad $250 aad bixiso yearly anyone lagaa qaadana $50 aad alaabtaada iibin meesha kugu jirto 10 xabaan u diray oo GPS ah aan iibinaya $11 waa boqol iyo wax la jira marka kambanigan de aniga waa kambanigayga ma aha kambaniyada soo karaayo yani uma fiicna hal GSU hal xabaad iibsatay they charge you $30 halka xaba aniga waxaan rabaa maanta inay iibiyo $10 so kambanigan ma aha haddii aad u baahan tahay meelo kale oo yani laga leexday iyo sheeg
anaa idiin tusin doona casharadeenna kale u xiga waa hagaag so annaga kan waa noo diyaar waxaan rabnaa inaan ii sheeg haddadan waa diyaarsanay mar hore waan faalladan aan isticmaalay fadlan aan isticmaalin sababtoo anaa already isticmaalay so I'm just telling you waa kuusii sheegaya iska ilaali iyo kula boodin baasha aniga waxaan geliyey UPS barcodekii aan meelaha ka soo qaatay oo aan rabo inaan casharada kale aan idinku tijaabiyo okay brand I usually say what maadaama ay tijaabo tahay generic baan ka dhigaya let me say W21 aan iska dhahno okay so continue waxaan leenahay continue hore u soco wuxuuna keeni doonaa vital information macluumaad dheeraad buu nooga baahan yahay inta badan xasuusnaa faraha la gelin Amazon waxayse ku dhihin samee tusaale ahaan meeshan hadda way cas tahay guduud waaye ama casaan qof la suu yaqaano meelahan kala ha taabanin because wax ku weydiista ma laha waxa waaye waxay dhahaan gaalada don't open the door you cannot close iridaha isku furin aad xiri karin okay so brand manufacturer yaa soo saara alaabtan adaa meesha keenaya waxaan leenahay steel W21 tusaale ahaan waa mug okay wax kale meeshan kama sameynayo waxaan leeyahay what is the next here kan baa ii soo booday which is what meeshana muxuu naga weydiinaya only laba shay ayaa layga weydiinaya wax kale lama weydiinayo okay waxaa la weydiinaya lacagta aad ku iibinaysa maxay tahay lacagta aan ku iibin doona laabtan waa 1197 maxaa dhacay dheh waxaan soo aragnay competitorkeena inay iibinayaan tracker dadka aan trackgaranayn kan ugu yar uu iibinayo 1399 okay 1399 ay iibinayaan so 1199 we will see how 1199 ay suuqa wax u tarto okay maxageen joogna waa tanaa so waxaa leenahay 1197 seller price US dollar your price suuqa waxa la iibinayo I will say waxaan iibin jiray baalkan I used to sell it for 3.97 man I iibin jiray markaa so hadhow qofku wuxuu arkaya intaasaa la iibinayay intaana hadda la iibinaya sida aad meelahan ku aragta hadda sida ninkan uu leeyahay markasa list price waxaa la iibin jiray 35.99 uu ku leeyahay ninkan hadda ahay meeshan 35.99 aa la iibin jiray uu ku leeyahay laakiin hadda waxaa la iibiyaa 28.99 so dadka hore ay kaga boodayaan waxay isleeyihin fursada haysataa conditionka alaabtan waa new oh shit okay maxaan isku dhufanaya what do I touch it man so meeshaan uu iibinaya waqtigee intaan la iibin jiray sales price waa ka tegaya tan maadaama uu timekii weydiinayo I don't want inaan create gareeyo waxyaabo fara badan maadaama uu time weydiinayo meelo kale igu furmay so I wanna walk away that waa ka soconaya sax maximum order hal xabo waa inuu qofka order garaysan karaa qofka 10 xabo ma dhigi kari handling maximum handling time okay horaan u socono handling time taas amisay ma u taala offsets rack stack date fulfillment-ga yaa ku buuxin doona Amazon ayaa samayn doonta maximum order quantity-ga das meeshaan hubino the maximum quantity of the product that customers may purchase hal xabaha so it's just one 10 xab ma dhigi karno so automatically wuxuu weydiinayaa more details dheer baan kaaga baahanahay baalkan wuu xanaaqay we need more details man okay detailsku u baahan yahay waxa waaye inta xabaan ka hayo bahladan imsaan xabaan ka haya bahladan dominationka yani size-kooda iyo wixii wax ka soconaya sababtoo Amazon will match waxyaabaha kale match garanaysaa number of items imsaan ka haya bahladan waxaa iska leeyahay aniga 10 xabo let's say 10 pieces man bahladan ka haya and domination can what was the domination okay package domination aniga package-yadii wax dhan waa haya laakiin waxaan samayn doonaa image-kaan tegaya marka hore let me load for image inshallah
sawirkan wuxuu noqon doonaa sawirkayga ugu horeeya. I don't know meeq saac duubaa bahasha. What time? 20 minutes aan maraya. I don't know videogan wuxuu noqon doonaa laakiin waa insha Allah horaan u soconaynaa. Maade. Okay. sawirka kale ku xiga sawiradan horaan u soo diyaarsaday meelaha lagu diyaariyo iyo lagu nadiifiyo waa idin sheegi doonaa ayagana kanaan ku xijinayaa kanaan ku soo xijinayaa okay kan waan ku xijiyay kanaan ku xijinayaa wagaag cajalkan intaan ku jooji doonaa markaan bahladan waxaan idinla talinayaa ama idinku waaninaynaa cashirka xiga kan aad la socotaan si aad waxyaabo badan uga faa'iidaan labadan amaan wana inaan kala wareejiyo this is good kan waa sidaas xaggan ayaan usoo noqon doonaa oo ku saabsan dominationka sida loo gelgeliyo dominationka waa buuxinaya oo kusoo noqonaya insha Allah